sideed bil ka hor ayaan sheekadan ka sameeyey wadada madaxweynuhu xariga ka jaray ee degmada Shangaani Dhaxmarta oo inta aan laamiga la saarin jawigeeda uu ahaa sidan. haddii aad doonayso in aad gaadiid ku tagto Liido ama garoonka kubadda cagta ee Koonis shacabna aad tahay waa kugu qasab inaad soo marto halkan wado oo sidaan u burbursan. muuqaalku kii shalay maaha, shacabkuna sidii shalay uma dhib qabaan. maanta wadadan magaceedu waa Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcadde. maanta runtii sharaf weyn ayay kulligeen noo wada tahay inaan xasuusanay runtii wadanigaas oo jidkaan oo runtii halboolaha dalka magaalada Muqdisho ku yaalla aan u bixinay. gudoomiye waa mahadsan tahay. والله horta anigoo ah Yaasiin Cabdinuur Jimcaale wadadan waa la iska ogaayay dadkii kulleeytu waxay tahay waa la arki jiray wada iska karakation oo iska dhibaato oo baabuurta ay ku dhib qabtay ahayd. haddana ma sha Allah wadadu aad ay u fiican tahay, waa la dhisay, laami baa la saaray. kulleeytu intaasna dawladda ugu mahad celinayna iyo Ilaahay weynaa. wadadan waagi hore waa sii mari jiray, haddana waa soo maray. waagi hore hadda biyo iyo jajab iyo waxay lahayd iyo burbur. maanta aad ay sidii ugu wanaagsan tahay, waa u jeedaa wada nadiif oo iskaga raaxaysaa waay. marka alxamdulillaah ma hadda ilaaha iska leh. magacayga waa Bashiir Yuusuf Maxamed. wadadan dhismaheeda aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadka dhisay, waana ku faraxsanahay. waxaana dhihi lahaynaa in wadooyinka inta badan sidoo kale noogula dhiso. haddii aan nahay dadka ku shaqeeya magaalada kana shaqeeya inta badan waxaan dhihi lahaynaa wadooyinkana loo dhiso. annagana waan ku raacsannahay, wixii dawladda ahaana ay naga rabaanna waan bixinaynaa. codkooda maanta ma aha cabasho, laakiin waxa ay dadkan jeclaan lahaayeen in aan jidkan la xirin daqiiqadna, maadaama uu halbowle u yahay shacabka degmada Cabdicasiis oo ah degmada kulmisa maalmaha fasaxyada kumanaan dad oo isaga yimid qaybaha kale ee magaalada damaashaadka xeebta Liido awgeed. maxamed yaxya jinow, dalka TV, Muqdisho.